maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Sool ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday laba ruux kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay taageereen Somaliland. Labadan nin ayaana waxa lagu kala magacaabay Cabdirasaaq Ciise Gudi oo da'diisa lagu sheegay inay tahay 48 sano jir, halka midka kalena lagu sheegay magaciisa Maxamed Cabdirasaaq Ciise oo asagana da'diisu ay tahay 20 sano jir. Labadan nin ayaana waxa lagu kala xukumay 3 sano oo xariga iyo waliba lacag ganaaxa oo dhan $500 halka midka kalena lagu xukumay asagana 1 sano iyo 6 bilood iyo waliba $300 oo asana ganaaxa. xukunka eedeysanayaashan ee ECC Qaatumo ay ku kala xukuntay lacagahan iyo waliba sanadadan kala duwan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dagaal adag oo dhaxmaray ciidamada ECC Qaatumo iyo maamulka Somaliland ciidamadiisa hore ugu soo naay gobolka Sool walow markii dambe ciidamadaas xoog looga saaray deegaanada maamulkaas. waxa ay sidoo kale ay ku soo aadaysaa xilli maxaabiis tirabeel ah ay labada dhinac ay kala haystaan. Somaliland iyo ECC Qaatumo ayaana dagaal ba'an u dhaxmaray walow dhawaan madaxweynaha maamulka ECC ee ku meelgaarka oo sheegay in Somaliland ay abaabulayso dagaal ka dhan ah ECC kuwaasi oo ay doonayso inay ku soo qaado deegaanadeeda mar kale ayadoona tiraka dhowr jeer maxkamadda gobolka Sool ay ka soo muuqdeen dad kala duwan kuwaasi oo lagu eedeeyay inay taageereen maamulka Somaliland. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.